ku soo dhawaada daawadayaal bulshada cusub. Boqortooyadii Mongoolka waxa ay ahayd boqortooyadii ugu weyneed caalamka ama dunida soo marta. Waxa ay xoog ku qabsatay muddo badanna xoog ku haysatay Aasiya Fog, Korea ilaa iyo Siberia, qaybaha ka mid ah Russia. Waxa ay kaloo xoog ku haysteen India iyo weliba Aasiya Dhexe ilaa ay gaadheen qaybo ka mid ah Yurub. Waxay kaloo xoog ku qabsadeen ilaa iyo Baghdad oo ah caasimadda waddanka Ciraaq. Boqortooyo waxay ahayd adduunka laga yaqaano ilaa iyo iminka kana tagtay taariikh lama ilaawaan ah. Ku soo dhawaada daawadayaal barnaamij aad u xiiso badan oo aynu caawa ku falanqeynayno boqortooyadii Mongoolka ama Magooliyiintii loo yaqaanay ee adduunka soo martay. Boqortooyadii Mongoolka ama Magooliyiinta sida loo yaqaanaba waxa ay ka bilaabatay dhulka iminka loo yaqaano Mongolia ilaa ay ku fiday meelo badan oo caalamka ah. Xuduudaha Siberia ilaa Baghdad ayay gaartay. Korea ilaa iyo bariga Yurub ayay xoog ku qabsadeen Mongoolkii ama Magooliyiintii. Waxay ahaayeen dad reer miyi ah oo cawaan ah oo xoolo dhaqato badan. Waxay dhaqan jireen xoolaha sida geela, idaha, fardaha iyo weliba cawsha. Qarnigii 12aad dhalashadii Nabi Ciise kadib ayaa waxa ay awoodoodii soo caanbaxday boqortooyadii Mongoolka, iyadoo xilligaasi uu madax u ahaa boqorkii caanka ahaa ee adduunka dhan laga yaqaano ee dhiigacabka ahaa ee Genghis Khan. 1162 dhalashadii Nabi Ciise kadib ayuu Genghis Khan waxa uu ku dhashay meel u dhaxaysa dhulka Siberia iminka loo yaqaano ee Russia ka mid ah iyo weliba Mongolia. Waxa uu ahaa nin ku caanbaxay dhiigyacabnimo, manaxnimo iyo weliba hogaamiyihii lagu aqoonsaday ninkii muddo gaaban ku qabsaday qaybo badan oo caalamka ka mid ah. 24 sano gudahood ayuu waxa uu ku qabsaday dhul ay isku dayayeen Roomanku inay 200 oo sano waqti la eg ku qabsadaan. Waxa uu ahaa hogaamiye ciidan oo xikmad iyo caqli badan u saaxiib ah, taaktikada ciidamadana yaqaana. Wuxuu caan ku ahaa inuusan u nixin dadka iyaga la dagaalamaya, isagoo hilbahooda karsanayay. Genghis Khan aabihiis wuxuu ahaa oday dhaqameed qabiilkiisa ah. Waxa ay taariikhyahanadu sheegayaan in qabaa'ilo kale oo Mongool ah oo kala dhaxeeyay dagaal inay aabihiis sumeeyeen. Kadib markii aabihiis uu dhintay, qabiilka Genghis Khan uu ka tirsanaa waxa ay noqdeen dad ceer ah ama waxba aanan haysan. Genghis Khan waxa uu galay duurka isagoo abaabulay ciidan la dagaalama qabaa'ilada kale. Waxa uu bilowgiiba dilay walaalkii isaga la dhashay. Waxa uu ku eedeeyay inuu ku fashilmay hogaaminta qabiilkooda iyo weliba iska dhicitaanka qabaa'ilada kale ee iyagu la dagaalamaya. Genghis Khan si uu u helo ciidamo badan oo uu la kaashado dagaalka uu qabaa'ilada kale kula jiro, waxa uu ka guursaday qabiil kale oo ay is agdeganaayeen. Waxa uu doonayay in qabiilkaasi uu la kaashado ciidamada uu kula dagaalamayo qabaa'ilada kale. Waxaa dhacday in qabaa'iladii uu dagaalka kula jira mid ka mid ah ay ka qaadaan gabadhiisa uu soo guursaday maxaaskiisii iyo weliba xoola ay lahaayeen. 5 sano muddo la eg ayay ku qaadatay Genghis Khan inuu soo dhacsado gabadhii laga qaaday iyo weliba xoolihii laga dhacay. Dagaalo badan oo uu la galay qabaa'ilada kale ee Mongoolka ah ayaa uu ku guuleystay. Kadib waxa ay qabaa'ilada ku gaadheen in hogaamiye ciidan ay u doortaan Genghis Khan. Genghis Khan markii uu abaabulay uuna isku dubarayday boqortooyadii Mongoolka, Magooliyiinta waxa ay galeen dagaalo kale ay ku qabsanayaan caalamka. Waxa uu ka bilaabay waddanka China, isagoo ciidan awood badan wata ayuu dagaal guluf colaadeed leh uu ku soo qaaday waddanka China.
iska caabin xoog leh ayuu kala kulmay ciidamadii Chinese-ka ahaa laakiin ciidamada maquulka oo ahaa dagaalyahano aanan nixin ayaa awood ku soo qabsaday qaybo badan oo ka mid ah China ilaa ay ka soo gaaraan magaalada Sundu oo iminka loo yaqaano Beijing oo ahaa caasimadda waddanka China. Markii ay soo gaareen Sundu ama Beijing waxa ay la kulmeen darbiga aad iminka taqaanaan ee weynka ah ee darbiga Beijing loo yaqaano. ciidamada maguulka oo iyaga aan aqoonin dagaalka darbiyada iyo waliba dhufeesyada ayaa iyagu qaab ay u galaan magaalada waayay. Genghis Khan oo ahaa nin tactikada ciidan si fiican u yaqaana ayaa wuxuu amar ku bixiyay in injineerada iyo waliba dadka Chinese-ka ah la soo qafaalo iyagoo loo adeegsanayo in ciidan ahaan lagu galo magaalada. injineerada ayuu amar ku bixiyay inay keenaan habka ugu fudud ee darbiga Peking loogaga gudbi karo. muddo sanado ah ayay ku qaadatay inuu magaalada xoog ku galo isagoo ciidamadii Chinese-ka iyo dadkii ku soo qafaalay u diiday cuntada iyo cabitaanka amarna ku bixiyay inay iyaga is cunaan tiyo dhacday sida taariikhyahanadu ay sheegayaan. ugu dambeys ciidamadii Chinese-ka oo jabay oo u adkeysan waayay ciidamada maquulka ayaa iyagu iska huleelay. Genghis Khan iyo ciidamadiisii maguuliyiinta ayaa iyagu gudaha u galay magaalada Beijing ama Sundu oo xilligaas loo yaqaanay iyagoo xoog ku qabsaday laayayna dadkii joogay magaaladaasi intooda badneed ee ciidamada u badnaa. kadib qabsashadii Sundu ama Peking Genghis Khan waxa uu u gudbay waddanka India isagoo waaga ahaa qaaradda India loo yaqaanay xilligaasi ilaa ay gaadheen ciidamada maguulka Yurubta bari ilaa iyo Baghdad Korea maysan joogsanin. Genghis Khan ayaa muddo gaaban ku qabsaday qaybo badan oo caalamka ka mid ah isagoo ahaa boqor aad loogaga cabsado laakiin wuxuu caan ku ahaa halkii uu qabsado inuusan dadka gumaadin dhaqankoodana ku qasbin. wuxuu dadka u fasaxayay diintooda dhaqankooda iyo habnololeedkooda inay ku noolaadaan. Genghis Khan ayaa isagu dagaalo badan galay waxa lagu dilay Genghis Khan dagaal ka dhacay qaybo ka mid ah waddanka China halka lagu duugay Genghis Khan ilaa iminka lama yaqaano. taariikhyahanadu waxa ay sheegayaan in halkii lagu duugay la daboolay si dadka aysan u caabudin waa sida ay sheegayaan taariikhyahanada. waxay leeyihiin dadkii duugay ee ogaa halkii lagu duugay waa ay laayeen maquuliyiinta ama Mongoolka si aysan u kashifin ama aysan u sheegin halka uu ku duugan yahay boqorada Genghis Khan. maquuliyiinta ayaa iyagu waxay ka faa'iideysteen culuum badan dadkii ay qabsadeen sida China oo ay ka faa'iideysteen habka loo sameeyo hubka casriga ah xilligaasi qaybihiisa kala duwan ee lagu galo dagaalada noocyadiisa kala duwan iyadoo sidoo kale ka dhacay dahab aad iyo aad u ballaaran dhulka India loo yaqaano. Bob Moore iyo Timur oo ka mid ahaa laba la dhalatay Genghis Khan ayaa dhulkaasi xoog ku qabsaday iyagoo Indida yaqaanay sifeynta ama naqshadeynta dahabka xoog ku amrayay inay dahabka si lacag la'aan ah ay u bixiyaan. Genghis Khan ayaa intuu noolaa wuxuu amar ku bixiyay in dadka 20% laga siiyo dahabka ay sifeeyaan ama ay naqshadeeyaan. boqortooyada Mongoolka ayaa waxaa lagu tilmaamaa daawadayaal inay ahayd mid ilbax ah inkastoo bilowgii ay cawaaneed oo dadka hilibkooda ay karsanayeen. taariikhyahanadu waxay sheegayaan in caalamka ilbaxnimo badan oo iminka taala inay seeska u dhigeen ama udubdhaxaad u ahaayeenba boqortooyadii caanka ahayd ee Mongoolka loo yaqaano. maguuliyiinta ayaa iyagu waxaa lagu xasuustaa inay xushmeynayeen dhaqanka diinta iyo waliba habnololeedka dadka ay xoogga ku qabsadaan ama ay u yimaadaanba taasoo ka dhigaysa dad ilbax ahaa. haddaba daawadayaal adigu sidee kula tahay maguuliyiinta fikrad noocee ah ayaa adigu ka aaminsaneed ama ka aaminsan tahayba nala soo wadaag fikradaada lana soco barnaamijyo kale oo ka hadli doona boqortooyooyinkii caalamka soo maray. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawadashadiina.